walaalayaal aan u wada duceyno dhammaanteen marxuumiinta sawiradooda halkan lagu soo dhigay oo runtii aad ogtihiin wixii ay u soo qabteen dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo magaalada caasimadda ah. waxaa loo dilay sida ay uga go'an tahay horumarinta dadkooda iyo deegaankooda ayaa loo dilay. waxaa loo dilay yani inaan dalkan iyo dadkan ayan hore u socon ma aha kaligood. waad ogtihiin, waxaad xasuusan kartiin dhacdooyinkii taas la mid ahaa kasii halista badnaa ee ka dhacay meelo kala duwan oo ay ka mid ahayd qaraxii Zobe, ay ka mid ahayd qaraxii Shamow, ay ka mid ahayd kii lagu qaaday ardaydii Soomaaliyeed ee hargaha iyo saamaha, qaraxii ex control 28 December. taasi marka waxay muujinaysaa kuwa caqiidada ka bukaday ayaga caqiidadoodii fasaaday ay fahamsiisay inay naftooda dilaan, isla markaas haddana ay taasi la sii yaraatay ee la raadinaya firdhadka naftooda iyo hilbahooda iyo lafahooda inay ummadda kale ku laayaan. sida ay u fikireen ayay taasina tusinaysaa. waxayna tusinaysaa qof kasta oo muwaadin ah oo muslim ah ee yiraahda waxaan u shaqeynayaa dalkayga iyo dadkayga inuu ayagaas dhibane u yahay oo ayan sinaba u cafinayn ayay taasi na tusinaysaa. walaalayaal, mar haddii aan ognahay inayan sina noo cafinayn, qof kasta oo naga mid ah fursad ay ku heleen inaynay daynayn mar haddii aan hubno oo taas aan xaqiijinay, ma jirto sabab aynaan annaguna ula dagaalamin oo aynaan ugu abaabulin bulshada oo aynaan u tusin ubadkeena iyo guud ahaan shacabkeena. runtii dalkan iyo dadkaanu waxa ay leeyihiin cadaawo badan oo isugu jira kuwa sokeeye iyo kuwa shisheeye intaba. kuwa gudaha ayaa ka xanuun iyo hagaardaamo badan kuwa dibadda. runtii kuwa gudaha aad ku arkaysiin oo dhacdadan oo kale iyo dhacdooyinka la midka ahaa fuliyey, ha u malaynina ficilka noocaasihi inuu ka yimid dadka Soomaaliyeed iyo damiirkooda iyo diinta islaamka inuu ka yimid marna ha u malaynina. waxaad ogaatiin waa fikir la soo minguuriyey, aad iyo aad u fasaaday. waxaad ogtihiin dadka waxay ka bukadaan jirka dhakhtara la geeya, waxay ka bukadaan dhaqanka, yacni inay gabdhaha kufsadaan oo wax dhacaan oo mataqaanaa wax dilaan. waa fasaad oo xagga dhaqanka ah. kuwaas ayagana waxaa la geeyaa xabsiyaa la geeyaa, dhaqan celina loo sameeyaa. kuwa caqiidada ka fasaaday sidaan oo kale dadka u laynaya maxaa nooga yaalla annaga? ilaan waad ogtihiin inay nagu dhex jiraan oo ay badan yihiin. marka ummad ahaan maxaa nooga yaalla? waxaa nooga yaalla inta ayan layn dadkeenna waxgaradka ah, inta ayan layn hoggaankeenna, inta ayan layn culimmadeenna, inta ayan layn yani bulshada
indheheeda intaysan ridin in ayaga la rido waa hubaa waa naga yaryihiin waa tiro yar laakiin u fikiraysa inay wax badan ay biyaan waxay ka fasaadeen xagga caqiidada ay ka fasaadeen waa khatar kuwaas waa kuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka digay culimadii ay joogta waxa noocaasu inay imaan doonaan fasaadna ay yihiin marka ma aha marka ficilada ay ku kacaan inay najilciyaan ma aha maxaa yeelay hadday najilciyaan waa naga adkaadeen ma ahan inaan oyno maxaa yeelay markaad adiga oydo ayagaa farxaya marka min fadlak adiga ooyintaada ha ku farxad gelin cadowgaaga sidaa darteed waxaad aamintaa in cadowgaaga uu dhibaato kuu geystay laakiin ay kaa go'an tahay inaad mid ka weyn ku dhigto ay kaa go'an tahay weliba qalbiga aad gelisay aad ficilna ku darto haddii aad la wadaagi karto ciidanka yacni xogahooda aad la wadaagto adigoo ilaahay ma ahanay cid kale aan ka baqin aad haddii ay kuu suurageli inaad qabato haddii aad ficil iyo qowlba u suuli karto inaad u suuliso intaasaan rabaa inaan isu dardaaranno runtii walaalaha halkan ku dhintay walaalo kale oo mataqaanaa aan koox sidaan oo kale u dhiman oo madax ah oo gobolka banaadir ayaa ka horreeyey madax badan oo gobolka banaadir ah ayaa la dilay haddii aad xasuusan kartiin taasi marka kuwa kale oo ka dambeeyey oo ama shaqaalaha ama mas-uuliyiin kale waa la dilay iyagana sidaa darteed waa inaan mar walba aan ka foojignaanaa cadowgeenna aanna ogaanaa fursad hadday nagu helaan inaanay nacafinayn mar haddii taas ay naga go'an tahay oo feejignaantaas aan la nimaado idanka ilaahay maba is arkaynaba waxa ay dadka ku laayaan waxa waaye waa isdhigasho iyo taxadir la'aan waayo ma ahan awood weyn oo dadka booratay xoog ku jabsata maaha waa dad mar walba buka ee dadka ku dhex jira oo madab lagu garta aan lahayn oo luqad gaar oo lagu garta aan lahayn oo shakli ama qaab ay u yaaliin oo gaar ah oo lagu garan karo aysan jirin oo dadka caadiga ah aan laga garan karin marka waa khatar in la iska ilaaliyo laakiin haddana waa in aad iyo aad arrintaas looga feejignaadaa aad iyo aad waa in looga feejignaadaa arrinta ku aadan waalidiinta maantii nagala soo qayb galay iyo ama dadka ehelada ah maanta nagala soo qayb galay halkan xuska ah waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo dhibaatadii ku dhacday shakhsiyaadkii ka socday ehelkooda isla markaas aan halkan uga ballan qaado wax alla wixii karaankeenna inaan la garab taagannahay agoonta waa lagu dadaalaa sanadkii la soo dhaafay waa lagu dadaalay waana sii ogaan doonaa in sha allah sida dhaawacyada hadda weli isbitaallada ku jira ama u naafoobay dhacdadaas mas-uuliyiinta hay-adihii gobolka banaadir iyo dowladda hoose sida aad ogtihiin waa hay-ado kala duwan marka hay-ad kasta oo ay ka shaqaynayeen dadka waxyeeloobay ama mataqaanaa dadka dhintay oo marxuumiintan ay ka mid yihiin hay-ad kasta oo ay la shaqaynayeen oo hay-adaha gobolka banaadir ka mid ah madaxdoodu waa inay warbixin joogto ah ka keenaan haddana ay naga soo gaarsiiyaan biidni illaahi tacaala waxaa jiri doona kulan gaaban oo khudbadaydan kadib aan la qaadan doono dadka ehelada ah oo ayagana halkan
jooga maanta si warbixin aanu kala qaadano insha Allah taala marka waxaan rabaa inaan intaas ku gaabiyo galab waa goor gaaban walaalaheen aan faatixada u akhrino ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto anagana samar iyo iimaan hanaga siiyo ballanteenu marka waxay tahay inuusan gaadin cadowgeenu annagoo og oo ku jiifna fursad kasta oo nagu helaan inaynan nacafini marka ballanteenu waa sidaas ma ilmeynayno ee waa aarsanayna halku dhigeynana waa kaas wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu